هاي أقيارته soo dhawaada muuqaalkeena maanta wuxuu ku bilaabanayaa wiil aad u da'yar wiilkan ayaa wuxuu dhigtaa iskuulka wuxuu saaxiibo ka leeyahay labadan wiilashan waxay ka sheekaystaan mar walbo gabdho laakiin Dani ayaa wuxuu isku xariifinayo wiilashan wuxuuna leeyahay waxa xariif u ahay hablaha si loo shukaansado wiilashan midka u yar ayaa wuxuu dhahay Dani waxa soo qabataa macallimada hadaa wax shukaansi kartid ee daacad ay ka tahay wallahi wiilka yar waa balo isla waqtigii waxa soo marayso wadada macallimada aad ay u qurux badan tahay waana qof aad u soo jiidasho badan ardayda oo u badan wiilal ayaa ku mashquulayaan macallimadan isla markii Dani wuxuu iska horjarayaa macallimadii isla markiina wuxuu qabsanayaa shaqadiisa macallimadii ayuu wuxuu leeyahay cawad waxa jiro movies ama film ayaa jiro wuxuu ku leeyahay ay isla soo daawano filmka cawada wuxuuna wadaa Dani laba kaar ama laba ticket loogu galayo filmka laakiin macallimada ayaa si kulul u hadlayso waxayna leedahay aniga ma ihi saaxiibada waxaasna ceeb waa waayartay isdeji waxay kale oo ku leedahay waxaan ahay aniga macallimada waa in ay xushmaysaa waxaas dambana ay ula hadlay waxaan maqli jiray caruur la daayay waa gaala la daayay macallimada waxay u soo wadaysaa fasalka waxayna kala hadlaysaa Dani waxyaabahaas qaarkood inay yihiin waxyaabo qalad ah ee ku habooneen waqtiga ugu jiro idadiisa macallimadii iyo wiilkan aad ku yar waxa u malaysaaba in isfahmeen macallimadii waxay ka wadaysaa fasalka waxaan u wadanaysaa xafiiskeeda Daniya oo wareejinaya cabitaan ayaa wuxuu kula kulmaaya macallimada meel aan iskuulka ahayn wuxuuna siinayaa isla markii cabitaankii maalintan iskuulka wuxuu qabiyay xaflad aad u weyn waxaana isku imaadeen macallimiinta iyo ardayda iskuulka dhigatay dhamaantood waxa qudbeynayay macallimiinta mid kamid ah isla markii waxa la maqlayaa cod gadaal ka yeerayo laakiin cidna kuma mashquulayso codkaas gadaal ka yeerayo macalinka ayaa wuxuu codsanaya daaha in laga qaado wuxuu sharxi rabay projecti iskuulka lagu soo kordhinayo laakiin isla markii daaha la qaaday waxa la arkayaa Daniya iyo macallimadii oo qaqaawan oo gadaashiisa ku jiro markiiba macallimada way xishoonaysaa waxayna ka cararaysaa meesha waxayna isku qarinaysaa calanka iskuulka Daniya ayaa wuxuu soo gashanaya dharkiisa wuxuuna soo hor istaagayaa ardayda dhammaan iyo macallimiinta ayaa u sabnayaan Daniya gaalada xumaan xitaa oo iskugu sabcinaya hal aasanaya maxkamadda waxa la soo saaraya macallimada waxaana la leeyahay waxa kufsatay arday kamid ah ardaydaada waxaana maxkamadda soo saareen macallimiinta iskuulka dhigato qayb kamid ah Daniya iyo macallimadii waxa la arkayaa macallimadii oo isla markii leh waxayna uurka u leedahay Daniya laakiin macallimadii waxa loo sheegayaa wiil jiro 15 sano inay kufsi u geysatay waxaana lagu xukumayaa 30 sano oo xarig ah maxkamadiina meesha ay ku soo dhamaatay macallimadii waxa loo kaxeenayaa jeelka iyadoo qasab loogu wadayo jeelka wiilkii yaraa ee Daniya wuxuu noqday mid caan ah waxaana wareysanayo TV-yada wuxuuna ka soo muuqanayaa TV show-yada sidoo kale waxa la kulmaayo dad caan ah fanaaniin iyo aktaro war anaka ayaa aragnay ninka intaas oo dhan muxuu u sameeyay oo loo bubuuninaya sidoo kale waxa shaqooyin siinaya TV fara badan wuxuuna soo xareynayaa lacag aad u fara badan Daniya 20 sano ka bacdi waxa arkeena Daniel oo weynaaday Daniel ayaa 20 sano oo la soo dhaafay lacagtiisa ku ciyaaray wuxuuna ku caawiyay qamri qaarkoodna uu ku baashaalay dawladana waxay ku leedahay lacag aad u fara badan oo ah canshuur laakiin wuxuu u tagayaa asiga looyarkiisa wuxuuna u sheegayaa looyarkiisa hadduu lacagta deynta ku bixi waayo intaas muddada ah in asiga oo xabsiga ku dhameysanayo noloshiisa wuxuuna u sheegayaa asiga inuuna bixinin lacag canshuur ah muddo 10 sano ka badan ah canshuurtaasna lagu leeyahay ilaa hadda looyarka ayaa wuxuu weydiinayo Daniel aaba wiilkaaga inuu ku caawiyo ayaa laga yaabaa saacada laakiin Daniel wiilkiisa meel kuma ogo Daniel ayaa wuxuu leeyahay wiilkayga waa isnaqaanaa laakiin islaama hadan waxaana laga yaabaa inuu caawiyo asiga oo iga bixiyo lacagta canshuurta ah laakiin meel ugu dambeeyo ma aqaan aniga laakiin lawyer-ka ayaa wuxuu soo bandhigayo barnaamij qamaar ah wuxuuna u sheegayaa nin aad u buuran wuxuuna tusayaa nin aad u buuran ninkan ayaa wuxuu leeyahay wuxuu qayb gali rabaa orodka maradoonaha wuxuuna leeyahay hadaad ninkan lacag far badan saarati waxa laga yaabaa inuu guuleysto orodka maradoonaha laakiin Daniya ayaa wuxuu shaki galay ninkan aad u buuran sidoo uu guuleysan karaa orodka maradoonaha wuxuuna u sheegayaa lawyer-ka inuu lacag far badan ahayn wuxuuna u sheegayaa hadaad bixisay $20 waxa ku guuleysanaysaa $160,000 Mareykan laakiin Daniel ayaa lacagtiisa wuxuu ku dhameeyay qamaar iyo waxaan jirin iyo qamri iyo tumasho waxaasna waxba lama ahe lacagtii ayuu dhiganayaa wuxuu u tagayaa producerkaas ayaa wuxuu ka codsanayaa inuu shaqo ka siiyo TV-giisa laakiin producerkii ayaa wuxuu dhahayo adiga waxa ahaa jirta caan laakiin hadda ma tiid caan haddana kuma rabto qof laakiin producerkii ayaa wuxuu dhahayo waxa rabaa inaa wareysto wiilkaaga haddaa ii keentid waxaan ku siinayaa lacag aad u fara badan laakiin Daniel ayaa isla markii wuxuu soo dhacay fikirkaas wuxuuna markii baadigoowayaa wiilkiisa Daniel markiiba wuxuu arkayaa buug oo ku sawiran yahay wiilkiisa iyo gabar kale waxaana ku qornay buugga inuu isugu caan dhacayo aroosooda wuxuuna la baxay wiilkiisa Tat gabartu guursan rabana waxa la dhahaa magaceeda Jane waxaana si fiican ugu sharxayso gabartii joogtay magasiinka Tat gabartu guursan rabo waxay ka soo jeedaa family aad taajiriin u ah Tat waxa lagu casuumay guriga gabarta oo guursan rabo Jane waxaana markii imaanayo Tat aabihiisa oo ah Dani Tat isla markii uu argiyo uu ka naxaya aabihiisa sababtoo ah wuxuu u labisnaa si faqiiriinta ama wuxuu u labisnaa labis aan qarin asiga wuxuuna leeyahay waa saaxiibkay aa kala lunay qofna uma sheegayo Tat inuu yahay Dani aabihiisa wuxuuna dadka oo dhan ka dhaadhicinayaa inuu yahay saaxiibkiisa Tat iyo Dani waxay isku qabanayaan si gooni ah Tat wuu xanaaqsanay wuxuuna ku xanaaqsanaa aabihiisa wuxuuna leeyahay hadaad ii baahan tahay inaa ila kulantid maxaa telefoon igu soo wici weysay ama ii soo raadi weysay laakiin Dani ayaa wuxuu leeyahay waxa waay lambarkaaga waxaana kugu soo raadiyay tilmaam Dani ayaa wiilkiisa wuxuu ku leeyahay hooyada waxa kugu dambeysay mar hore mana la kulmin wiilina waxay ku jirtaa jeelka waxa isku raacaynaa hooyada waxaana la soo kulmaynaa hooyada ay isdiyaari isla markii waxay kala dhiganayaan balan Dani wuxuu ku soo noqonayaa TV show-gii qoladii
lahaa wuxuuna waqti la qaadanayay tiimka TV-ga wuxuuna u sheegayaa tiimkan hadduu projectigan oo ku guuleystaan inuu helayo lacag aad u fara badan oo noqonayo taajir. Dani wuxuu ku casuumayaa wiilkiisa xafladda asiga ma jeclo Tat isla markii Tat wuxuu xafladii ka dareemayaa boring laakiin xafladii isla markii waxa kala kicinayo Tat. Dani wuxuu u malayaa Tat inuu wili yar yahay wuxuuna barayaa baaskiilka si loo kaxeeyo. Tat iyo Dani wuxuu isu soo dhawaadeen aad waxaana ka muuqato inay ka dhaxeyso jacayl waaridnimo. Dani wiilkiisa wuxuu ka dhaadhicinayaa inuu birito u kaxeynayo hooyadiisa ay kula kulmayaan jeelka laakiin dhanka kale Dani wuxuu ku fikirayay inuu meesha kulmayaan saddexdooda oo ku balamiyay halkaas qolada TV-ga haddii barnaamijkaas ay ka duubtaan oo ku dhufanaya asiga lacag aad u fara badan oo nataajinayo. Tat asiga uma sheegayo waxaas in TV-ga ay ka balansan yihiin meesha. Tat wuu ka ogolaanaya inuu la kulmo hooyadiisa laakiin subaxii Tat oo wato gaarigiisa ayaa wuxuu soo wacayo aabihiisa Dani wuxuuna u sheegayaa inuu u socdo asiga hooyadiisa hada. Tat ayaa isla markii intoo ka naxo ayuu ka daba cararaya wuxuuna baalaminayaa qolada TV-ga saddexdooda oo ku sheekaysanaya meesha xabsiliyada ay ku sheekaystaan ayaa waxa imaanaya qolada TV-yada waxaana ka duwanayeen waqtigaas kaamiro. Tat ayaa wuxuu dhahayo waxaa la soo saxiixatay TV waxaana rabtay in ay ga duwatay video waana iqayaantay waxaana iskaga tagayaa isla markii Tat meeshii qolada TV-ga waxay kansalayaan saxiixii oo saxiixay Daniel wuxuu ku qasaarayaa halkaas. Dani wuxuu guranayay dharkiisa wuxuuna rabay inuu iskaga tago meeshaan isla markii wuxuu maqlayaa Janie oo ah gabarta guurso rabo wiilkiisa Tat oo shukaansanayso nin kale waxayna qayaanaysay wiilkiisa Tat wuxuu dhageysanayaa wixii ku hadlaysay oo dhan markii wuxuu u tagayaa xaflad ay qabeen Janie iyo Tat wuxuuna u sheegayaa wiilkiisa Tat inay qayaanayso gabartan eena asiga wax dhan ay kala heen ee la shukaansato niman kale. Janie ayaa waxaas oo dhan beenaynayso waxayna u sheegaysaa Tat aabihiisa inuu yahay beenaale waxaasna ay wax jirin waxayna ku dacweynaysaa Tat isla markii wuxuu soo burinayaa xafladda aabihiisa wuxuuna leeyahay waxaa taada rufyaan iska bax. Maalintaas ka dambo Daniel wuxuu bilaabayaa inuu Janie oo daba dhigto calashaan inuu Janie xog ka soo aruuriyo dhismihii deganeeday Janie ayuu kor socday Dani wuxuuna rabay inuu soo ogaado Dani wixii sameynayso wuxuu ka soo gelayaa daaqada wuxuuna arkayaa Janie oo la joogto nin kale aan ahayn wiilkiisa Tat oo Janie markay aragto Tat aabihiisa Daniel oo kor taagan way isku naxaysaa waxayna ku leedahay ha ii sheegin aniga waxaan ku siinayaa $15,000 isla markii wixii kala siixanaya dhilkii wuxuuna ka soo qaadanayaa $15,000. Daniel oo joogo xaafadiisa wuxuu ku fikirayaa inuu wiilkiisa u doorsanin $15,000 wuxuuna isku dayayaa inuu wiilkiisa oo ka celiyo gabartan khiyaanada badan wuxuuna isleeyahay wiilkaaga lacag kuma bedela kartid. Isla maalintii ku xigtay waxaa dhacaysay arooska Janie iyo Tat laakiin waxaa imaanaya xafladda soo galayo Daniel wuxuuna meesha ka sheegayaa waxay sameynaysay Janie ayaana inkiraynin oo sheegayso waxaas inay samaysay laakiin Tat ayaa isla markii wuxuu kansalayo arooska. Dani iyo wiilkiisa Tat way israacayaan waxayna ka tagayaan arooskii. Dani iyo wiilkiisa Tat waxay noqdeen laba qofood oo saaxiibo ah. Meel baara waxaa ku sheekaysanayay Dani iyo wiilkiisa Tat wuxuuna leeyahay waxaa guursadatay gabar taajirad ah laakiin waxaa kaga fiican inaad guursatid gabar aan ku qayaanaynin. Isla markii waxaa imaanayo looyarka Daniel wuxuuna u sheegayaa orodkii Maradona ahaa inuu hadda socdo waxayna aasanayaan Dani iyo Tat inay daawadaan ciyaartaas orodka. Ninkii buurnaa isla markii wuxuu qaadayaa orodka. Dani wuu farxayaa wuxuuna ku guuleysanayaa lacagtii $160,000 ahayd. Filimkeena maanta wuxuu ku egayaa intaan ku kulmayno filimkan camal waxaan kaaga tegayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.